assalaamu calaykum maalin wanaagsan mar kale kusoo dhawaada waxaa noo socdaa cashirkii digital course-ka digital addis platform-ka cashirka xiga ayaan gudagalayaa la yiraahdo asiga waa nooc kamid ah cloud muxuu ahaa computing waa nooc kamid ah cloud computing social media waxa la isku yiraahdaa cloud computing ka la isku yiraahdaa applicationada oo soo hoosgalayo web applications ka soo hoosgalayo ah kuwa social media lagu isticmaalo waxa la isku yiraahdaa cloud computing marka social media asana qayb ayuu ka yahay waa qaybta saddexaad ayuu ku jiraa kuwa ugu waaweyn ee internetka lacagta laga sameeyo marka ma jiro wax shaki ah in social media advertising-ka hadda uu kamid yahay kuwa si kobcaya lacagaha tirada badan laga sameeyo sida Facebook oo kale lacagaha laga sameeyo waana lacagihiisana waa cash flow waa lacagaha iska socda waa cash flow waxaan u dhahay waxa waaye yani qolada soo sameysay Facebook oo kale dadka soo sameeyay anagu waxaan ahay dadka userska ahay dadkii isticmaalaya ahay Facebook waxa soo sameeyay dad soo sameeyay marka company-ga iskale company-ga lacag badan oo ku faa'iido marka growing growing income dhacayo sanad waliba uu dhacaa bilooyin uu dhacaa wuxuu dhacaa daily uu dhacaa marka wax waliba iskama socdaan micnay u socdaan ujeedii u socdaan marka sida waxa laga sameeyaa lacagaha ugu badan ee sanadkii laga sameeyay ayaa ah 1.65 bilyan oo yani globally active mobilada inta badan mobilada active ka ah yani isticmaalaya social media ayaa lacagta laga soo saara ay tahay 1.65 bilyan sanadkiiba sidoo kale waxa la socdo waxa la socdo 1 milyan oo new active mobile social added every day maalin waliba marka waxa lagu soo daraa maalin waliba social media ayaa waxa ku soo kordha social media waxa ku soo kordhaya waa iyadana qayb kamid ah xayeysiinta waxa ku soo kordhaya 1 milyan oo ah dad cusub social media maalin waliba kuwaas oo raba in ay faa'iidaan lacagaha weyn ee aadka u buuran ee la soo dhigo internetka sidoo kale wuxuu leeyahay budget uu leeyahay miisaaniyad uu leeyahay caalamka dhan laga wada isticmaalaa wuxuu leeyahay static views uu leeyahay social media advertising statistics uu leeyahay sidoo kale wuxuu yani uu ka bilowdaa 16 bilyan ayuu ka bilowdaa waa sanad 16 bilyan uu gaaraa sanadka xigana muxuu ahaa waa budgetka waxaan ka hadlay miisaaniyadiisa marka sanadkiisa xigana wuxuu gaaraa 30 bilyan ayuu gaaraa wuxuu ka bilowdaa 16 bilyan wuxuu gaaraa 30 bilyan ayuu gaaraa inta u dhaxaysa labada sano ee budgetka miisaaniyada ay dejiyaan qolooyinka social media marka laba qayb ayaa social media online advertise organic loo sameeyaa mid waxa waaye word of mouth technical and paid iyo placed paid ads marka promotion posts-ka sida Facebook oo kale wuxuu leeyahay boost promotion uu leeyahay boost promotion-ka waxa la yiraahdaa in post aad soo dhigto lacag aad ka hesho adigana company-gana oo lacag uu ka helo oo xayeysiinta promotion-ka ku sameynaysa in uu lacag ka helo sidoo kale sponsor uu leeyahay sponsor stories-ka popular waana wadiiqo oo muxuu ahaa oo lagu soo bandhigo company-yaasha kale xayeysiintoodii lagu soo bandhigo internetka social media laga isticmaalo ayadoo aan la bixinaynin wax oo muxuu ahaa bundle waxa la yiraahdaa lacagaha daatada internetka ayaa la yiraahdaa bundle-ka wax bundle laga marbo kaliya waxa laga rabaa bis lacag yar inaad bixiso dan lacag weyn ay ku kordhiso lacagta xayeysiin ah hesho marka wuxuu leeyahay sidoo kale charti uu leeyahay oo aad kala socon karto charti uu leeyahay chartigaas oo aad kala socon karto information waliba muxuu ahaa transactionada iyo waxyaabaha iyo static view ads-ka visitors-ka intaba aad kala socon karto sidoo kale waa Facebook uu leeyahay Twitter-ka uu leeyahay Facebook Twitter muxuu ahaa waa most popular platforms-ka social media platforms-ka ay company-yada ay muxuu ahaa ay ka helaan macaamiil aad u tiro badan ayadoo yani muxuu ahaa
LinkedIn-ka ujeedada loo sameeyay LinkedIn waan sharxi doonaa social media muxuu ahaa list social media oo intaba waan soo sheegi doonaa waan sharxi doonaa iyo ujeedooyinka loo sameeyay iyo yani waxa lagu talagalay in lagu isticmaalo iyana waan sharxi doonaa B2B sales waxa la yiraahdaa business to business yani muxuu ahaa ganacsiga lagu bedelayo sida hadda waxa kamid ah ganacsiga lagu bedelayo waxa soo hoosgalaya forex ka soo hoosgalaya forex waa ganacsiga lagu bedelayo sababtoo ah muxuu ahaa waxaad sarifayso waa labada lacagna waxa waaye muxuu ahaa in aad faa'iido ka hesho mid baad sarifaysaa lacag faa'iido ka helaysaa mid kale sidoo kale sarifkeeda socdo lacag ka helaysaa iyadana marka hadda kan waa chart sida marketerska ay u isticmaalaan social media sida ay u isticmaalaan boqolkiiba ayagu percentage waxa weeye B2C iyo B2B ayaa la isticmaalayaa marketerska marka waxa waa mar walba markay sidaas ay tahayna waxa dhacay competition market dhacayo in qolo walba ay ku tartanto xayisiinta in qolo walba ay ku tartanto dhaqaalaha in qolo walba ay ku tartanto ganacsiga productyada ay soo dhigayso meesha ayaa ku dhacaysa marka jaartigan guud ahaan sidaas uu sharxaya